cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi shir jiraayad oo ku qabtay magaalada Hargeysa isla markaasina uu kula hadlayay halkaasi warbaahinta ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dagaalku ku dhexmaray Buuhoodle waxaan ugu baaqay inay nabad ku soo dabaalaan halkaasina ka abuuraan xasilooni iyo nabad waxa kale cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa madaxweyne xisbigaasi hadalkiisa si raaciyay fariin u diray xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale oday dhaqaneedka ku nool Soomaaliland inay ka qaadato doorkii ay ku lahayd amniga iyo sidoo kale in xasilooni lagu soo dabaalo dagaalka ka taagan Buuhoodle waxaan baaq nabadeed u dirayaa shacbiga Soomaaliland ee ku nool degmada Buuhoodle ee walaalaha ah waxaan ugu baaqayaa in dhacdadii halka ka dhacday dadku ku dhinteen in ayna ka maarmin qof kaliya oo inaga dhinta qof kaliya oo inaga dhaawacma sida la sheegay in ka badan 10 qof ayaa ku dhintay dagaalka shalay dhex maray labada beelood ee walaalaha ah waxaan soo jeedinayaa in colaadda la joojiyo in dagaalka la joojiyo in nabadda la soo celiyo in xasiloonida la soo celiyo qof quraan ka maarana ma jiro maanta Soomaaliland intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantay Ilaahay caafimaad ha siiyo waxaan ugu baaqayaa dhammaan odayaasha dhaqanka iyo dhammaan jooga Soomaaliland in la nabadeeyo oo beelaha la dhex galo oo nabadda la soo celiyo waxaan ugu baaqayaa xukuumaddu inay doorkeeda qaadato mar labaad waxaan ku baaqayaa baaq nabadeed walaalayaal colaadda joojiya walaalayaal dagaalka joojiya inta kama maarano qof walana kama maarano marka nabadda aan qaadano dhinaca kale musharaxa madaxweyne xisbigaasi wadani ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu ka hadlay wafdi ka yimid dalkaasi Ingiriiska oo soo gaadhay Soomaaliland waxaan u sheegay wafdigaasi inay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka xiriirka u dhaxeeya Soomaaliland iyo dalkaasi Ingiriiska isagoo arintaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxa maanta inoo yimi wafdigii ugu cuslaa ee ka socda dawladda Ingiriiska oo ka koobnaa ilaa 10 qof ama mas'uul oo hogaaminayay wasiir oo ku jiray safiirka Ingiriiska iyo saraakiil kale agaasimayaal guud oo ka tirsan wasaaradda Ingiriiska ee arrimaha dibadda iyo kuwa deeqda bixiyaba waxay u yimaadeen Soomaaliland inay kala hadlaan guud ahaan arrimaha doorashada iyo horumarka iyo iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliland waxaanu kala hadalnay arrimaha doorashada khuseeya dhamaantood waxaanu kala hadlay in loo gurmado dadkii abaaro ku dhaceen ee shacbiga reer Soomaaliland in aad iyo aad loogu soo gurmado oo noloshoodiina dib loogu soo celiyo haddaba iyadoo maalmihii ugu dambeysay uu dagaalkaasi ka socday Buuhoodle isla mar ahaantaasina halkaasi ay ku geeriyoodeen dad qaar kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxa isa soo taraya baaqyada ay dirayaan xukuumadda xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo cuqaasha waxgaradka ku dhaqan Soomaaliland isla mar ahaantaasina waxay baaq u dirayaan dadkaasi walaalaha ah ee ku diriraya Buuhoodle sidii ay dadkaasi ay uga dhalin lahaayeen dhexdooda nabad iyo xasilooni waa Khalid Yuusuf Xasan Khalid Fantastic Television caalamiga Somali News Hargeysa